السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو صنع وناسن ورغيال وهل كان يا جنال كيني مهد بري ومقع معلنك إن شاء الله تعالى زدري ميسان use of between this side and behind إن شاء الله تعالى ما تحنين هي رياء آد وحيسة بدن وليبا آد ديلي يسكا بدن أو قفك أمر وليبا أباهي هي إنه استعماله ونباهن معان قرادا إن شاء الله فهن كسابسن بل سيدي عدو استعمال laga yaabo qaar inay si qalad u isticmaalaan ayagoo ereyga yaqaan insha Allah taala taasna ay tahay fahanka markaas qofka shayga waxaad u baahan tahay inaad aad ugu celiso aad u isticmaasho waliba marka horena aad fahamto bal ereyga halka loo isticmaalo insha Allah taala between ayaan maanta baranaynaa ereygaas la yiraahdo between waxaan baranaynaa beside waxaan baranaynaa behind insha Allah taala وأريه وين هذيك هذا تقانان قف كده هذا لغة كعسموية هو كلا واحد أنا على جال يجي أورماني وما يرخص نص ديال سيد ملا إن شاء الله تعالى بالهذا الله صعدا مركو رايحين كات سنة يا فضلا هذا تسي جوكتي لايك تصار شيء أكبر خيل المعلم إن شاء الله تعالى هذا العصب تاعي سبسكرايب له يوم بلك الريح ويبقى all سي تابو سي أد مر ولي بعشرة دوش إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وان عم بلاونا use of between beside and behind use استعمالك of between استعمال كذا beside استعمال كذا and your behind استعمال كذا ومحي between لبا دحدا beside دينعة behind قدال look فيري at the following sentence جملة صوصع the following صوصع ده وين sentence جملة ده وين الجملة صوصع ده يجنا between محل جوده between waxaa laga wadaa laba dhexda waxaa laga yaabaa qof inuu yiraahdo between maxaa waaye waa dhexda dhex maaha waa laba dhexda that means laba shay dhexdooda weeyaan ka badan ma saddex qof looma isticmaali karo ka badan looma isticmaali karo waa laba dhex maaha that means waa laba shay dhexdooda ayaa maxaan ku raaddaa meesha u dhaxaysa laba shay meesha u dhaxaysa between loo isticmaalo waaye haddii laba ka badato sheegadu kuma jirto I am sitting, but I know I am sitting one fadhiya. I am aniga sitting one fadhiya between Abdi and Faisal. Haddii hadda meeshan saddex wiil ay joogaan ama afar wiil joogaan between ma isticmaalaysid laakiin waa Abdi iyo Faisal dhexdooda laba dhexdooda ku jirta marka waa kaasa I am sitting one fadhiya between laba dhexda Abdi and Faisal. Faisal iyo Abdi laba dhexdooda fadhiya. The boy wiilka is standing wuxuu taagan yahay between laba dhexda the chair kursiga and the table miska hadda I'm standing between the table and between the chair and the table hadaan ku dhaho that means miska iyo kursiga dhexdeedan taaganahay waa iska fahmi kartaa laakiin waxaa ka wanaagsan inaad tiraahdo laba dhexda weeyaan that means waxa dhex taagantaa laba shay dhexdoodii baa tahay marka labada meesha u dhaxaysa joogtaa so you say the boy will is standing wuxuu taagan yahay between the chair and the table between meel u dhaxaysa the chair and the table miskiga kursiga look at Fili this bowl baaquligan between us anaga noo dhaxeeya weeyaan anaga dhexdeena ma aha noo dhaxeeya weeyaan look at Fili this bowl baaquligan between us anaga noo dhaxeeya laba dhexdeena Fili between us between you adinka in dhaxeeya between us and between them ayaga dhexdooda saasoo kale weeyaan the door albaabka is between wuxuu u dhaxeeyaa the two walls labada derbi the door albaabka is between wuxuu u dhaxeeyaa laba dhexda weey the two walls labada wall ama labada derbi put your head madaxaaga between laba dhexda your knees jilbahaaga laba dhexdooda yaad madaxa gelinaysaa put waxaan ugu yaqaabaysa midal atira wareer force halkaas nin dhaw ma bedel maxalla laga hoosna kaliya ka maxalla put your head madaxaaga dhig between your knees jilbahaaga dhex halkaas ka bixinaysa madax between laba dhexda your knees jilbahaaga nin marka la keeyo waa qaranaysa waa silent iska boodaysa knees waa jilbaha what is the difference farqiga between u dhaxeeya you and I ani adi farqiga noo dhaxeeyo what is the difference waa maxay farqiga difference badii farqa ama farqiga between u dhaxeeya you and I ani adi maxaa noo dhaxeeya maxaan kala duwanahay maxaa noo dhaxeeya maxaan kala duwanahay there is disagreement خلاف there is waxa jira disagreement خلاف baa jira between u dhaxeeya Ethiopia and Sudan Ethiopia wadanka Ethiopia and Sudan wadanka Sudan
waxaa jira disagreement u dhaxeeya between laba dhexdooda ku jira. What is waa maxay between you what is between you laba qof waxa isku meel waxa ku raad isdagaalayso oo murmaysa u imaado war maxay dhex jireen maxay dhaxay what's between you maxay dhaxay what's maxaa between you laba dhexdii maxay yaala maxay dhaxay ku doodaysa maxaa ku dagaalamaysa what's between you what's between you maxaa ku dagaalamaysa maxay dhaxaya. This side waa dhinac this side waa maxay waa dhinac adigu halkan taagan geeskaaga midigta ama bidaxda wax hadba meeshaas ka jira ayaa waa labada dhinac ama midig ka jira ama bidax ka jira this side waa dhinac weeyaan. He asaga came u yimid ansad wuxuu fadhiistay this side ha ayada dhinaceega this side waa dhinaca haana waa gabadhi ayada weeyaan. He asaga came wuu imaaday ansad wuu fadhiistay this side ha ayada dhinaceega. Came maxaa waaye mana come oo mana ficil tagay weeyaan basti tagta fog weeyaan come timeesha came loo bedelan soo mar. He came u yimid ansad wuxuu fadhiistay sad mana sid bay ka imaaday sad wuu fadhiistay wey faltagay this side ha ayada dhinaceeda this side dhinaca ha gabadha ayda. I aniga always badana walk waan socdaa this side my father aabay dhibeen duqan magaalada u raacaa soo markaan soconaya I just walk this side my father aabay dhinaciisa because dadka marka socdaan aragtay qofba qof kale dhinaciisu garabka isku hayaan soo ma soo waxaa leedahay I always badana walk waan socdaa this side dhinaca my father aabay baan garab socdaa mana dhinac socdaa okay. I am sitting one fadhiya beside the bed this side dhinaca the bed sariirta geeskeeda meel ah intaan kursi qaataan sariirtan garab fadhiya mana dhinaceedaan fadhiya sariirta kuma fadhiya markaas I am sitting one fadhiya beside the bed sariirta dhinaceeda beside. The teacher macalinka stands wuu taagan yahay beside dhinaca the blackboard sabuurada beside mana wuu dhinac taagan yahay dhinac marka macalinka ashi hore aragtay gees buu istaagaya dhinaceedu istaagaya. The teacher macalinka stands wuu taagan yahay ama wuu istaagaa stands wuu istaagaa waa present simple way stands wuu istaagaa every day maalmo markuu cashir bixinaya beside dhinaca the blackboard sabuurada. The teacher macalinka stands wuu istaagaa beside the blackboard beside mana dhinaca the blackboard sabuurada. Come kaale and sit fariiso beside me ani dhinacii kaale fariiso uma fariis malaade ha come kaale and sit fariiso beside dhinaca me ani beside me dhinacii kaale soo fariiso. Put dig the pot digsiga this ama dheriga beside dhinaca the fire dabka matalan digsiga dabka ka qaadi dabka garab dhig oo kale ma hadlaysa put dig the pot dheriga beside dhinaca the fire dabka mana dabka garab dhig put the pot beside the fire put the pot beside the fire dhinaca dabka dhig fire dabka weeyaan beside dhinaca weeyaan pot waxa laga dheriga. She ayada backed way back ha ka gaarigeeda ha waa waxeeda awalna ayadan ku soo qaad meesha fiiri ha waa ayada ha markaas object way object pronoun la ama laakiin marka object macnaha ay sheeg maxaa possessive pronoun way ha ka gaarigeeda ayada waxeedii way markaas awalna ayada eedya malada she backed way backed ha ka gaarigeeda beside dhinaca the road wadada wadada geeskeeda dhigta she backed way ha ka gaarigeeda beside the road wadada dhinaceeda. Behind waa gadaal behind maxaa waaye qof meel taan gadaashiisa derbiga gadaashiisa waxaa macnaha gadaal beside macnaha behind gadaal weeyaan miiska gadaashiisa oo kaasa. What is waa maxay behind you gadaashaada maxay yaala what's behind you gadaashaada maxay yaala maxaa gadaashaada what is maxaa behind gadaasha you adi gadaashaada fiir maxaa gadaashaada yaalniyo sit fariiso behind me gadaashiisa fariiso sit behind me qof fadhidii arag walakan soo fariiso arday oo meesha kuraas eeziyan warqaal gadaashiisa fariiso sit behind me sit fariiso behind me behind gadaasha me aniga gadaasha dhabarkiisa soo fariiso. He is asaga hiding wuxuu ku dhumanayaa behind the door albaab gadaashiisa hide waa gabashadii dhumashadii he is hiding wuxuu ku gabanaya wuxuu ku dhumanayaa behind gadaasha the door albaab gadaashiisa waxa ka maray albaabka xagu ka maray guumarmay. Look firi behind the cupboard armaajada gadaasheeda look firi behind the gadaasha the cupboard armaajada armaajada gadaasheeda macnaha shaqada waxba ka dhacay ama waxba ka jira shaqal baad ka maqashay waxa leedahay armaajada gadaasha firi look firi behind the cupboard armaajada gadaasheeda firi. It is behind the window daaqada gadaasheeda waraa bisadii aaway shayga noocaas intuu aaday it is behind the window daaqada gadaasheeda u jira shaygaas shay ama bisad ahaata ama shay kala ahaado it asaga oo xayawaan ku taagan ama malaa'ikhi it is behind wuxuu xagga ka jira gadaal ka jira the window daaqada gadaasheeda. It is behind you gadaashaadu yaala aw bugi it's behind you
أوي معايش كرسي أو it's behind you كداش هذا يلا behind كدال حقه كجرا behind you هذا كداش هذا أنا قال left وان كتجي something واحد behind وني واحد صار ده قال صار المامي كدال ما كسر ده مش حبان يسوع إلهي مرة يسوع إلهي على ده I left something behind من مساك يقول كتجي وهذا صار أفتاركم حاول ما صار نقطة I left something behind I left something behind وحبان قدال كسر إلهي قدال ما أقول له حاجة صدق أو مش ما نفتي واحد قال كسر أفتي وأنا صار إلهي the room قولك is behind وقدال كجرا the toilet مصوش هوني قولك أوي مصوش قداش هذا you see what مصوش قداش هذا the room قولك is behind the toilet behind قداش the toilet مصوش قداش toilet معه مصوش toilet مصوش behind قدال toilet مصوش room معه قولك ويا the room is behind the toilet دي أيها standing وحيتارين behind the wall تربية قداشيس ويلش أوي ضدك أو ضد الويدين أو حاجات هاي they are standing وحيتارين دي أيها standing وحيتارين behind the wall تربية قداشيس behind قداشة the wall تربية قداشيس حاجة كذا تربية معنا الله I left وان كسر تجي my phone تلفون كي behind قدال بانسو ده من صاحب ما كسر تجي تلفون كده صاحب ما نقول كسر ما عفيس كسر إلاوي الله ده تلفون كسر تجي يصير I left my phone behind I left وان كسر تجي my phone كي أما تلفون كي behind قدال بانكو صداف ده من صاحب إلاوي وان كسر تجي نياو مرة إن شاء الله تعالى dhegeysi wacan halkaas inoo ekaanaya isticmaalka saddexda between beside and behind waa very simple and useful words inshallah ta'ala come with me and understand very much inshallah thank you very much assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh